shirweynaha jaaliyadda deegaanka Guredamele ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis St. Paul. Shirkaasi oo ay jaaliyaddaasi uga hadlayeen horumarinta xagga wadooyinka, waxbarashada, caafimaadka iyo dhaqaalaha ayaa waxay markaasi halkaasi ka direen fariin ku socotay dowladda federaalka dalka Ethiopia. jaaliyaddaasi oo runtii shirkaasi aan u kala harin si aad u heersanaysana ugu diray fariintooda dowladda federaalka Ethiopia waxa erayadoodii kamid ahaa ma haddi markaa inta kaga gudbo anagu waxaan nahay dad Ethiopiana deegaan ku leh weligood deganaa sida daraadeed waxaan ka tirsaneen kililka shanaad ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia intaas 20 sano ee kililka uu jiray kamanaan helin wax horumar ah oo waxtar ah waxaan isugu nimid oo nu qabanay press conference-kan in aan ka hadalno dhibaatada ummadayada haysata haddaanu nahay Guradamele sababtoo ah annagu محافظ بنا منهن معارض ضد محافظة أياننا أو دولة ديجانكا لا صوجري لا صوجريني لكن حقوق دي أن كلهن ما أنهلن رمضان وحي وبحسي ودن كيا كراهية وحليرة كراهية تاما تاسو معناه دو أي تاي واجدك أغونتا وحان كم متسن جرن منه ودن كانا halgamayaal aad u fara badan ba ku soo dhintay kililka shanaad maanta xornimada ay ku faanahayaan dadkii dhaliyay baan nahay runta marka loo hadlo ana qayb ka ahaa ragalkan fadhiyo badan ba qayb ka ahaa sida kulow iyo jabadii dadkii u soo dagaalamay ee dhugooda u daadiyay iyo intii dhimatay intii dhaawacii ka hadhay baan nahay arintaasi tiyo sidii maanta in la xaqiro xaqayagii la duufsiyo gurahadaan nahay هل أيدي بان لنا هاي لما أيدي ما وضن أيدي كم حان كوضع مستبقها لو يقان قرها إثيوبيا ده حلال عنا ده نضيف عنا معارض منا لي تهرب معارض نقوم الشيء تنهدنا نقوم نقوم الشيء ده نضيف عنا هاي سيدبا حق النجي لو وايي حق النجي يا حق ري اللين أدون كوحلا قبحية بجد أنا عاو بجت كناجي. كوجل درستي شري لباتن كيسانو أو أرنتاسي أي نقطة مد قربجو أي مد لوجل درستي نقال أنتي كذا عدي قبل كاس أيضا أرنتا دبو عرشة الله خيامي قبل كاستيد داموري شري لباتن كيسانو أي كسعتي هرمرنتا قبل كصومالي دا استيد Guradamele wax uu ka helay oo xagga horumarinta dhaqaalaha ma jirto guud ahaan dad Ethiopian baan in Ethiopia winay in Ethiopia winay በሀገራችን ላይ ብዙ ችግር አለ በሀገራችን ላይ መንገድ የለም ሆስፒታል የለም ጥሩ ትምህርት ቤትም የለም በዛ ላይ የሀገራችን ሰው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲረዱን እጃችን እንዲይዙ አገራችን እንዳስቀድሙ ነው የምንፈልገው አማርኛዬም እስከዚህ ነው መሰለኝ እና እኛ ከፌደራሉ ምንፈል እንግዲህ አገራችን 25 ዓመት አንድ መንገድ የለም አንድ ሆስፒታል የለም አንድ ነገር የለም ለምን እንደሆነ ማናውቅም የበላይ ባለስልጣናቸው ወደ ሌላ ቦታ ቀይሮ marka waxaan ka codsanaynaa inaan dhibaato nolol horseedin soo dagaal sokay meesha uga dhaceen waxaan rabnaa hadii ay dawlad jirto waxaan ka codsanaynaa in dhibaatada ka cabanayna wax laga qabto waxaan rabnaa gobolka Guradamele inuu u madax banaanaado maamulkiisa waxbarashadiisa hay'ad kasta oo mataqaanaa dawli ah inuu madax banaanaado ilaa dalkiisa dhashto qof kale ma dhisay ceelalna u sameeyeen
wadooyinkana aa u samaysiin wadamada kale oo lagu daraayo oo dariska inna laga dhaafo ayaan codsanayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu dambeyntii shirkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda ka soo jeeda deegaankaasi Gure Dhaamoole oo iyagu ka kala yimid gobolada iyo degmooyinka kale ee isteediyada dalka Mareykanka. waxa ayna halkaasi isku waafaqeen in horumarinta deegaankaasi uu yahay waajib muqadas ah loona baahan yahay in aan loo kala harin. shiree warsame galbeedka telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable magaalooyinka mataanaha ah Minneapolis St Paul dalka Mareykanka.